السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن ونكسن داوديل waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka kuwa ugu door karoon waxa qayb ka noqonaya taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Asad Diyaano oo xilka laga qaadayo hal sabab darteed isagoo markaan musuqmaasuqi ugu weyn ka sameynaya taliskii ciidanka ugu sareeyay ee booliska Soomaaliyeed iyo sidoo kale wiilkii ama sargaalkii laf dhuun gashay ku noqday oo guud ahaanba isku horwareejiyay sababo la yaab leh oo xilka lagu qaaday ayaan ku wadaagi doonaa sidoo kale bedelkiisa oo guud ahaanba haatan diyaarsan halkee ayuu ku dambeeyaa madaxweynihii dalkaasi Venezuela Nicolas Maduro oo markaasi Mareykanka ay gacanta ku dhigeen sidoo kale qodobada kale waxa qayb ka noqonaya Mareykanka oo markaasi shaaciyay xilliga la tooganayo Nicolas Maduro oo haatan ku jira mid ka mid ah xabsiyada ku yaala magaalada New York ee dalkaasi Mareykanka dhinaca kalena gobolka Shabeellada hoose waxa ka dhacay qarax aad u xoogan kaasi oo dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac waxaan kula wadaagi doonaa deegaanka oo sida gaarka ugu dhacay sidoo kale markaasi khasaaraha rasmiga ah halkaasi ka dhashay iyadoo sidoo kale faahfaahin dheeraad ah ay ka soo baxayaan qaraxa markaasi halkaasi ka dhacay soo dhawaada saaxiibayaal waxaan wax ugu dambeeyay arrimahaas ku aadan inaan kula wadaago balse xogtaas oo dhameystiran intaan kula wadaagna hadii ay tahay markuu horisan soo boqoto fadlan YouTube keena subscribe saar oo kamid noqo saaxiibada nagu xiran oo halka markaas aan ugu baahino xogihii ugu dambeeyay arrimaha Soomaalida iyo caalamka muuqaalkana like saar wixii fikirkaaga qaybta hoose ee faalada noogu reeb baad ku mahadsan tahay daawashada iyo sidoo kale jaanqaadka wararkeena mahadsan daawada marka la soo dhawaada aynu ku bilownay waxa isa soo taraya xilka qaadista taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Asad Diyaano kadib markii dekedda magaalada Muqdisho ay noqotay goobtii markaasi ugu badneed oo markaasi ay ka soo degayaan walxaha maanka dooriya ay ugu horeeyaan daroogada iyo sidoo kale bilibiliga xashiishka iyo markaasi walxaha la halmaalo kuwaasi oo maanka dooriya saacadihii ugu dambeeyay waxa soo tarayay xilka qaadis markaasi lagu soo waramayay in xilka lagu qaadi doono taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Asad Diyaano oo mahaatan dhexda ka taagan ceeb iyo sidoo kale fadeexad weyn kadib markii dekedda magaalada Muqdisho ay noqotay goob lagu sameeyo shacabka Soomaaliyeed ee markaasi ku dhaqan guud ahaan geeyiga Soomaaliya Asad Diyaano sidaad ogtihiin markii uu Puntland ku sugnaa oo inta aan loo magacaabin taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed deegaanada Puntland markaasi waxa uu soo gelin jiray ayaa la leeyahay walxaha sidoo kalena maanka dooriya waxa uu qayb ka ah markaasi dadka ka ganacsada walxaha maanka dooriya sidoo kalena waxa la leeyahay budget iyo sidoo kale qandaraasyo waaweyn ayuu la saxiixay ayaa la leeyahay markaasi ganacsado markaasi ka ganacsada ayaa la leeyahay walxaha maanka dooriya isagoo markaani iyo sidoo kale isagoo markaasi heshiis rasmi ah la gaaray ayaa leeyahay in ganacsada markaasi ay ugu soo degaan walxaha maanka dooriya sidoo kalena uu markaasi badeecadooda uu sidoo kale uu ku wareejiyo si ammaan leh isagoo markaasi taliyihii dekedda magaalada Muqdisho oo guud ahaanba iscadilay kaasi oo sidoo kale iscadilaadiisa baraha bulshada si weyn la dhaxmariyay kadib markii taliyahan lagu magacaabo gaashaanle sare Axmed Khadar Maxamed Xasan oo ahaa markaasi taliyihii dekedda magaalada Muqdisho oo guud ahaanba xilkii uu ka hayay dekedda magaalada Muqdisho iska cadilay kadib markii dekedda Muqdisho uu ku qabtay 3 container oo markaasi ay ka buuxaan walxaha maanka dooriya kuwaasi way kamid yihiin sidoo kalena bilibiliga daroogada tuwaakada iyo xashiishka kadib markii uu taliyaha qabtay waxa amar sare ugu yimid hogaankii ugu sareeyay ee ciidamada booliska Soomaaliyeed Asad Diyaano waxa uu markaasi sargaalkii xukumayay dekedda magaalada Muqdisho ku amray in guud ahaanba saddexdaasi container si ammaan leh ugu soo baxaan magaalada Muqdisho daayirkii markaasi aan marnaba aanan ku dhiiranin inuu qarankiisa qiyaano ee markaasi hogaanka u hayay dekedda magaalada Muqdisho guud ahaanba waa uu ka biidiiday amarkii markaasi ugu yimid taliyaha ugu sareeyay ciidanka booliska Soomaaliyeed Asad Diyaano dabadeedna Asad Diyaano ayaa waxa uu soo saaray warqad markaasi uu xilka kaga qaadayo ayaa la leeyahay taliyihii markaasi xukumayay dekedda magaalada Muqdisho Axmed Khadar markaasi lagu magacaabayay haatana dekedda magaalada Muqdisho waxa loo soo magacaabay sargaal kale oo markaasi isagu uu keensaday taliyaha ugu sareeyay markaasi ciidanka booliska markaasi Asad Diyaano xildhibaano sidoo kale ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale ganacsada Soomaaliyeed ayaa waxa la leeyahay waxa ay markaasi qandaraas wada saxiixdeen taliyaha booliska Asad Diyaano si uu markaasi ugu fududeeyo ayaa la leeyahay in daroogo ay ka soo degto dekedda magaalada Muqdisho daroogada markaasi ka soo degayso waxa la og yahay in dhaqaalaha ugu badan markaasi ay ka soo xariiso dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo sidoo kale markaasi ay hareysay sidoo kalena ay markaasi dhulka la dhigtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo guud ahaanba balwadu waxa ay ka dhinteen raashin la cunayo sababta ugu weyn markaasi Asad Diyaano xilka loo qaaday ayaa in musuqmaasuq weyn uu ka jiro dekedda magaalada Muqdisho sidoo kalena raashin dhacay sidoo kale daroogo markaasi si xawli ay u soo galayaan dekedda magaalada Muqdisho waxaana mas'uuliyadda qaaday ayaa leeyahay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Asad Diyaano saacadaha soo aadan ama sidoo kale maalmaha ugu soo food leh ayaa lagu soo waramayaa in xilka guud ahaanba laga qaadi doono taliyaha ciidamada booliska Asad Diyaano waxaan lagu soo waramayaa in haatan warqadii xilka qaadiskiisa ay miiska saaran tahay sidoo kalena ay dhiman tahay in lagu dhawaaqo sidoo kalena loona magacaabo
mar kale taliye cusub hogaanka markaasi ciidanka booliska Soomaaliya see u aragtaa in taliyihii ugu sareeyay hogaanka ciidanka booliska Soomaaliya uu markaasi qayb ka noqonayo in dalka uu soo galo walxaha maanka dooriya wixii fikirkaagana qaybta hoose ee falada noogu reeb dhinaca kalena haddii aynu eegno halkee ayuu ku sugan yahay madaxweynaha dalkaasi markaasi Venezuela Nicolas Maduro iyo sidoo kale xaaskiisa oo guud ahaanba haatan ku jira xabsi ku yaala magaalada New York ee dalkaasi Mareykanka sida ogtiinba ciidamada loo yaqaan Delta ee ka tirsan Mareykanka kuwaasi oo markaasi tababaro heer caalami qaba ayaa guud ahaan waxay weerareen madaxtooyadii markaasi Venezuela iyagu guud ahaan markaasi halkaasi ka soo afduubtay madaxweynihii dalkaasi Nicolas Maduro iyo sidoo kale xaaskiisa afduub kadib Mareykanka ayaa waxa uu ninkan u soo kaxeystay dalkaasi Mareykanka gaar ahaan magaalada New York haatanna waxa uu markaasi ku jira xabsi ku yaala magaalada New York Mareykanku waxa uu sheegay in guud ahaanba Nicolas Maduro dadka markaasi ku dhaqan guud ahaan dalkaasi Venezuela ay ka horweejinayeen sidoo kale sababta ugu weyn ee markaasi Mareykanku u weeraray ayaa leeyahay markaani waqooyi bari ee dalkan ku yaala ee waqooyiga Ameerika dalkan ku yaala ee lagu magacaabo Venezuela waxa ay tahay in Mareykanka markaas uu danaynayo sidoo kale shidaalka Venezuela waa dalka kaliya ee ku yaala waqooyi markaasi galbeed ee Mareykanka waxaana ugu badan uu soo saaraa waa shidaalka iyo sidoo kale macdanta Mareykanka ayaa daneynaya in macdanta iyo sidoo kale shidaalka uu markaasi Venezuela soo saarayo guud ahaanba markaasi hantiyo sidoo kale uu la wareego nacfiga markaasi ay haystaan dadka Venezuela Mareykanka waxa uu shaaciyay markaani xilliga la toogan doono sidoo kale maxkamadda la soo saarin doono ninkan lagu magacaabo Nicolas Maduro oo ahaa markaasi madaxweynaha dalkaasi Venezuela oo baraha bulshada saacadii ugu dambeeyay si ay u qabsaday Mareykanku markaasi waxa uu sheegay in guud ahaanba maalmaha soo aadan uu ninkani markaasi maxkamad markaasi soo istaajin doono sidoo kalena sida hore loogu bartay Mareykanka madaxda markuu dalka ka soo afduubto guud ahaanba markaasi waxa looga bartay inuu ku xukumo dilal kala duwan ama sidoo kalena daldalaad Mareykanku guud ahaanba haatan waxa uu leeyahay Nicolas Maduro waa xukunsaday sidoo kalena waxaan markaasi ku fulin doonaa markii waxaas ay maxkamadda ku xukunto sidoo kalena gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Yaaq Birweyn waxa ka dhacay qarax aad u xoogan kaasi oo dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac leh qaraxan waxa uu ka dhacay goob maqaaxi oo markaasi lagu caweynayay halkaas oo ay ku sugnaayeen dad shacab oo markaasi u soo ganacsatay suuqa ugu weyn ee deegaanka Yaaq Birweyn ee gobolka Shabeellada Hoose qaraxan ayaa lagu soo waramayaa in dadka deegaanka sidoo ay noo xaqiijiyeen inay markaasi ka dambeeyaan maamulka Koonfur Galbeed oo maalmihii ugu dambeeyay sidoo kalena halkaasi ku handadayay sidoo kalena guud ahaanba ka soo horjeestay dadka shacabka ay markaasi halkaasi ku ganacsatay qasaaraha sidoo kale halkaasi ka dhashay waxa lagu soo waramayaa in guud ahaanba halkaasi geeridu ay gaarayso ilaa 4 qofood dhaawacyaduna markaasi lagu soo waramayo ilaa 7 qofood oo shacab ah dhawacyadii cuslaana waxa loo soo qaday leeyahay magaalada Muqdisho ee markaasi caasimadda Soomaaliya waa markii ugu horeysay deegaanka Yaaq Birweyn ee gobolka Shabeellada Hoose uu ka dhacayo qarax noocan oo kala ah qaraxana waxa uu ahaa leeyahay qaraxa suuboodada oo lagu aasay markaasi goobta maqaaxida ahayd oo markaasi ay ku caweynayeen dadka shacabka ay markaasi xoolo dhaqatada u badnaa ama ganacsatada markaasi xoolaha markaasi kala gidisanaysay oo markaasi ku kala iibsanaysay suuqa ugu weyn ee deegaanka Yaaq Birweyn ee gobolka Shabeellada Hoose shacabka ayaa haatan waxay muujinayaan walaac aad xoogan oo markaasi ay ka muujinayaan laamaha ammaanka ee ugu horeeyaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyagoo hadda dush ka saaraya maamulka Koonfur Galbeed waxay leeyihiin qaraxani waxa ka dambeeya maamulka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale saraakiil ciidan oo markaasi ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya oo ku sugan markaasi degmada Walaweyn waxay sheegeen in qaraxani guud ahaanba laga soo abaabulay markaasi degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Dhexe guud ahaanba haatan xaaladdu markaasi way degan tahay dhaawacyadii sidoo kalena waxa loo soo qaaday magaalada Muqdisho iyadoo sidoo kale meedadka saacadaha soo aadan lagu aasi doono deegaanka Yaaq Birweyn ee sidoo kale gobolka Shabeellada Dhexe shacabka guud ahaanba halkaasi ku sugan maalmihii ugu dambeeyay waxa dagaal xoogan ay kula jireen sidoo kalena qabiilada deegaankaasi isagoo colaadiis ay taagan tahay waxa haatan soo ifbaxaya saacadii ugu dambeeyay inuu qarax ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Yaaq Birweyn ee gobolka Shabeellada Dhexe waana markii ugu horeysay taariikhda deegaanka Yaaq Birweyn oo ka dhaco qarax noocan oo kala dadku ayaa haatan waxa ay warinayaan in guud ahaanba eeda markaasi ama mas'uuliyadda ay qaadi doonto maamulka Koonfur Galbeed ugu horeeyo madaxweynaha maamulkaasi Cabdi Casiis Maxamed Laftagareen